qadiijo oo habeerta baa soo wacday waxay tiri hadaan ogaa lahaa wiilku in oo mataqaana habaryaal aan nahay waa soo dhaweey lahaa intaas waxa uga dhigaysay boog waxa ka dhigaysay ceeb laakiin gabooyo ceeb ma lahan waa dad islaam ah waa dad Soomaaliyeed wax aniga ceeb ah ee warsangeliga adigu aad tahay kaga duwan yihiin anuu ma aqaan shiino abtiyaasha waa warsangeli iska dhal baa tahay asagana abtiyaashiis waa gabooyo wax ay isdooriyaan haba yaraatay ma jirto waa laba qabiil oo Soomaaliyeed la dheernimo hadaan u soo laabano ninka kan waa mursade adiguna waxa tahay warsangeli inuu kaalaan dheeraysan waa iska cadda oo kaalaan dheeraysan qabiil hadii la yiraahdo anigu marka ma garan karo asbaabta aad mataqaana sida qaaska ah aad gabooyaha ugu aaday anigu waa garan karaa laakiin dadku ma fahmi karaan inta aqal ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك كحرن جنال كي أيام قلبي أوفيشيال في نمو وناكسن دمانتين ميل كستا أد جوكتان إيميل كستا أد نقد داونا إسان وإن كيما هاد قلنينا هالكا أد نقد داونا إسان وأيام قلبي أوفيشيال والرويال فاميلي والرباه إنو ما أنت إذن فاقضاء أما عاوة أنا فيدك كان كهالله دقال كبانا إيو دحيي كيكي سيكي إيو شراع علي دقال كوحاجري وحيابا بدن أو وحاجري إرياء إن يردو إسلاف صدين oo laakiin xanaf ahaa laakiin dadku aysan wada fahmi karin erayadaas inta badan waxa adeegsaday shiino culay baa adeegsaday erayo dadka aqliga u saaxiibka ah kaliya ay fahmi karaan weeye erayada waxa kamid ahaa shiino culay mar u dhahayay aniga qadiyad meesha aan ka joogo waxa ku ogaanaysaa beeshaydu wax meesha waa ka weeday Soomaaliland xilwaanada soo baxay laakiin abtiyaasha meesha xilibaan bay ka heleen oo abtiga barqad oo soo baxay baa wax kasta igala weyn waxba kama jiraan qaf kasto abtiyaashiis iyo mataqaana dadkiisu dadka kale inay kaga soo hormaraan ayuu jecel yahay wax kama jiraan laakiin hadalka waxa uu kaga gol lahaa asaga oo shiino culay yasaya ama u arka wax aan jirin oo mataqaana karbaashaya qabiilka leeyahay gabooyo buu kaga dan lahaa in CK abtiyaashiis gabooyo yihiin gabooyana ay yihiin wax xun oo ceeb ah amal asagu ay la tahay ayuu meesha ku muujinayay wuxuu ka dhigayay boog buu ka dhigayay laakiin anigu ma garan karo waxa gabooyo iyo beesha aad adigu tahay ay warsangeli ay macnaha ku kala duwan yihiin waaba idinka qurux badan yihiin ba ii sheeg gabooyuhu waaba dad qurux badan oo ma taqaana gabdho qurux badan baaba laga helaaye warsangeliyo waxa weeye ii sheeg maxaa lahaa ii gabooyo markii la yiraahdo aniga talent iyo wax kastaba aniga gabooyahan aan ka aqaanba oo ma taqaana fanaaniin iyo dad badan oo waaweyn oo Soomaaliyeed wax tar u laha ka soo baxeen anigu marka ma garan karo shiino culay ayada oo lagu jiro qarniga 21aad asbaab aad gabooye iyo qabiil Soomaaliyeed ku yasi karto adiga oo qof kale ataagaya waxa tiri maama qadiijo oo habeerta baa soo wacday waxay tiri hadaan ogaa lahaa wiilku in oo mataqaana habaryaal aan nahay waa soo dhaweey lahaa intaas waxa uga dhigaysay boog waxa ka dhigaysay ceeb laakiin gabooyo ceeb ma lahan waa dad islaam ah waa dad Soomaaliyeed wax aniga ceeb ah ee warsangeliga adigu aad tahay kaga duwan yihiin anuu ma aqaan shiino abtiyaasha waa warsangeli iska dhal baa tahay asagana abtiyaashiis waa gabooyo wax ay isdooriyaan haba yaraatay ma jirto waa laba qabiil oo Soomaaliyeed la dheernimo hadaan u soo laabano ninka kan waa mursade adiguna waxa tahay warsangeli inuu kaalaan dheeraysan waa iska cadda oo kaalaan dheeraysan qabiil hadii la yiraahdo anigu marka ma garan karo asbaabta aad mataqaana sida qaaska ah aad gabooyaha ugu aaday anigu waa garan karaa laakiin dadku ma fahmi karaan inta aqliga u saaxiibka mooyee shiino culay kiiskaas gacantay kaaga dhacday qabiil Soomaaliyeed baa adigoo aaminsan wax xun inay yihiin baa dadka Soomaaliyeed qaf kale inaad qabiil ma taqaana aad ku caaydo baad keentay arintaas apologize Soomaali weydiisaan ku dheelaa gabooyi ceeb malahan waa uma Soomaaliyeed weeye dadka aqliga u saaxiibkaan way dareemi karaan fiidiyogaaga dadkii dhageystay ama daawaday marka aad leedahay jufadaydu waxba xillibaanaha Soomaaliland kama helin laakiin abtiyaasha oo ku soo baxay baa wax walba iiga weynaa abtiga barqad jaamac marka aad leedahay waxa weeye gabooya wax xun ka dhigay ninka in abtiyaashiis gabooyihiin baa dadka u sheegaysay laakiin gabooyo ceeb ma leh waa uma Soomaaliyeed abtiyaashiis haday noqdaan hadii xataa ay aabihi hadoo noqdo xataa wax weyn maaha waa uma Soomaaliyeed wax ceeb ma leh hadaysan ka aqoon iyo ka cilmi badneen ka cilmi iyo aqoon yara
marka shiina culayow arrintaas waa ku degdegtay aniga laba qodobba shiina culay waa ku hayaa gardaradu ma fiicna inkastoo maama malyuunna iska soo hadashay laakiin maama malyuun waxay rabtaa iska daldashaa iska daa iyadu waxay rabtaa iska sheegto qafku qabiil laguma taageero waxaa lagu taageeraa qafka taalentigiisii waxa uu la yimaado Soomaalinimo ku taageer laakiin qaf waliga qabiil ha ku taageerin maama malyuunay qabiil wax uu ku taraayo malahan qabiil jannana ku tagmaysid adduunna waxba kaama caawinayo shiina culay laba qodob baa baraada qalad ku gashay oo aadna gaf kuga ahayd qodob waxa weeye qodobka koowaad waxa weeye inaad qabiil Soomaaliyeed aad ma taqaanaa adoo u arkaya wax ceeba inay tahay oo aad meel inta la soo tiraado aad tira abtiyaasha baan ku farxo jaga helay habaryarta way tira hadaan ogaalahayn waa soo dhaweelahayn maxaa wiilkuna inaad qabiil Soomaaliyeed sida ugu gaftid ama u yeestid aad baan uga xumahay adigoo ma taqaanaa qaf muctarif umada ka ah laba qodobka labaad ee aad qaladka aan kugu saaray shiina culay oo aad ku gafto waxa weeye nin baa xaaskiisii hore oo ay kala tageen baad sheer u sameynayso aad gadayso bicinayso ha lagu yaaco ha lagu darsado ha la yeelo abababa marka arrimaha shiinow labada qodobba waa ku qaldaneed wiilku iyo gabadha waxa macquul ahayd waxyaabo yar inay isku maan dhaafeen wixii yar ay ka heshiyaan dib u midoobaan waxa macquul ah inuu inantiisa social media-yeeda in la barto oo la ogaado inuu sarabin waxa laga yaabaa ayagoo isku soo laabarab in qodobkan uu dhibaato ku keeno marka anigu ma garan karo shiinow inaad ninka kan sida tooska ahaad ugu bareerto marna xaaskiisa aad wareejido oo aad luqyada dadka ugu soo dirto marna aad ii sheeg maxaa la yidhaha aad abtiyaashii ku gafto shiina culayow indhuguweed baa tahay indhuguweed ah baa tahay oo gun ah arrintaa haddaadan apologies ka soo dhiibin ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa kiiska kan aniga qaladkiisa waxaan saaray shiina culay sababtoo ah wax kale kuma saar raggu waa isgafi karaa caayi karaa waa isku xumaa karaa laakiin ummad dhan ama qabiil dhan ama beel dhan lagu gafo oo ma taqaanaa ii sheeg wax jaahiliye ah lagu dhaqmo anu arrintaa waa ka soo horjeedaa shiina culay waxaan ku leeyahay arrintaas beeshaas waxa macquul dad badan kaaga xiran yihiin beeshaas taas waa ku gaftay walaalow gacaliye waxyaabaha aad sameynaydo oo jaahilnimada ah oo ummaddu ka kortay dib ha noogu celin qarni 21 baan ku jirnaa 2021 baan ku jirnaa ummadda Soomaaliyeed hore u socotay hore in loo socdaan rabnaa dib ha noo celin anigu marka waxaan ku soo koobayaa hadalka idinku dheereemayo waxaan ku soo koobayaa beesha aad ninka abtiyaashiis aad ka sheegtay ee aad tiri abtiyaasha nimanka ah adeer abtiyaasha iyo adeeradaaba iyo abtiyaashiis waxba isma dooriyaan waa uma Soomaaliyeed wax cilmi ah aqlina ma dheera warsan geli baa abtiyaal ku ah asagana gabooya u ah wax ay isdhaamaan ama ku kala duwan yihiin anigu ma aqaan kalarku waa isku mid umadnimadu waa isku mid diinta islaamka wadaystaan oo uma Soomaaliyeed wax ay isdhaamaan anigu ma garan karo shiinow arrintaas apologies ka bixi dhiiqaad lagu hala gashay dhiiqada iska saar oo dadka hor imaaw dadka aqliga u saaxiibkaan waa fahmi karaan shiina hadalka markuu dhaay wuxuu kala jeeday soo comment gareeya dadka aqliga u saaxiibka waa fahmi karaan shiilo arrinta gunnimay ku noqonaysaa kiiska kan ka toobadkeen oo waxaan ku leeyahay dadka horkeen oo cafis weydiiso aad baad u mahadsantihiin kiiska kan ku sii dheeraamayo waa Royal Family oo leh tan muuqaalkan muuqaal xiga ku kulmi doona he shuba digirta still we are student